Waxaana wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawow qaybta xigta ee sheekada ku saabsan fadeexooyinkii hay-adda sirdoon ee Muusaad. Fadeexadani waxaan ku ogaan doonaa Eli Cohen xidigii Muusaad. waxaa tarjumay saaxiibkii Cabdiraxmaan Anteena anigoo Marcadda ayaa kula socodsiinaya. Marcadda TV ayaad ka daawanaysaan. qaybtaana waxay ku bilaabanaysaa Eli Cohen waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa xidiga koowaad ee sirdoonka Israa'iil. Sheekadiisana waa mid ka mid ah dagaaladii ugu muhiimsanaa ee qarsoonaa kaasi oo dhex maray sirdoonka Carabta iyo kuwa Israa'iil. waa sheeko dhif iyo naadir ay tahay keliyana ay suurtagal ay tahay inaad filimaanta aad ku daawatid, balse qisada aan idinkaga xog bixin doono waa mid xaqiiqo ah. Israa'iil markii hore waxay ku guuleysatay inay Eli Cohen ay si adag u diyaariyaan kadibna ay ku beeraan qaxootigii Carbeed ee Argentina ka yimid. waxaana uu markii hore qorshahoodu u ahaa inay Masar u diraan, hase yeeshee tallaabadaasi waa ay ka laabteen. waxaana sabab u ahaa in Eli Cohen Masar hore loogu xiray 2 jeer oo kala ahaa sanadihii 1954 iyo 56. sidaasi awgeed qaab basaasnimo oo Masar loogu diro suurtagal ma aysan ahayn. taasi beddelkeedana Muusaadkii waxay go'aansadeen inay Syria u diraan. Muusaadka markii hore waxay ku guuleysteen inay Eli Cohen ay ku beeraan gudaha dalka Syria, hase yeeshee markii dambe gacanta sirdoonka ayuu ku soo dhacay, waxaana ay sabab u ahayd in sirdoonka Masaarida ay waqtigaasi ahaayeen kuwa aad u feejigan oo la shaqeynaya sirdoonkii Syria. waxaana ay ogaadeen xaqiiqda Kamil Amin Taabid ama Eli Cohen kaasi oo si weyn ugu agdhawaa ragga hayay talada Dimashq xilli uu isagana u sharaxnaa xitaa inuu noqdo wasiir ku-xigeenkii difaaca ee dowladda Syria. sirdoonkii Masar ayaa walaalahoodii dalka Syria si degdeg ah waxay ugu wargeliyeen xogta iyo macluumaadkii ay gacanta ay ku dhigeen, taasi oo cadeynaysa xaqiiqda Eli Cohen. kadibna sirdoonkii Syria ayaa Eli Cohen gacanta ku dhigay, maxkamadna la tiirsaday iyaga oo lagu xukumay dil toogasho ah xilli lagu daldalay bartamaha magaalada Dimashq. haddaba maxay tahay qisada Eli Cohen? sidee ayayna Yuhuudda ugu guuleysteen inay ku dhex dusiyaan dowladda Syria? qaab noocee ayuu sirtiisa ku ogaan jiray? sidee loo qabtay oo Israa'iil ay isugu dayday xitaa in ay badbaadiso? iyo xogo kale oo dhammaystiran aan eegna markan. sheekada Eli Cohen waxaa kaloo loo yaqaanaa xidigii Muusaad ee badbaadintiisa Israa'iil ay waddo kasta u martay. waxaanay ka bilaabanaysaa gudaha dalka Masar, halkaas oo Eli Cohen uu ku dhashay 16 bishii December sanadkii 1924. magaalada Qaahira ayaa waxaa la sheegay xitaa inuu ku gaaray waxbarashadiisii heer jaamacadeed. muddadii uu jaamacadda dhiganaya Eli Cohen wuxuu ku biiray urur xagjiriin ah oo ka koobnaa dhalinyaro Yahuudi ah, waxaana ka dambeeya sida la sheegay ku biiristiisa gabar Yahuudiyad ahayd oo lagu magacaabi jiray Bulandi Jabi, taasi oo ahayd gabar qoys hanti lahayd ka soo jeeda kuna nooleed magaalada Iskandariya ee gudaha dalka Masar. isla haweeneydaasi lagu magacaabaya Bulandi Jabi waxay ka dambeysay in Eli Cohen uu ku biiray sirdoonka Muusaad oo la aasaasay sanadkii 1937. waxaana Bulandi Jabi waqtigaasi la sheegay inay xubin firfircooneed ay ka ahayd Muusaadka. sanadkii 1950 markaas ayaa iyada oo 2 sano ay ka soo wareegatay xilligii Israa'iil ay ku dhawaaqday inay dowlad ay tahay, ayaa Eli Cohen qoyskiisii waxay u safreen dhulkii Falastiiniyiinta si halkaas ay u degaan. waxaana ay ka koobnaayeen Eli Cohen, labadiisa waalid iyo 7 carruur ah oo isaga la dhalatay, balse isaga safarkiisa qayb kama uusan ahayn oo waa uu ka haray isagoo qoyska ka ballan qaaday inuu ka daba imaan doono. waxaan hore idinkugu soo warranay sirdoonkii militariga ee Ammaan inuu Masar uu ku beeray 2 unug oo sirdoon. qorshahooduna uu ahaa inay bartilmaameysadaan xarumaha Mareykanka iyo Israa'iil ay ku lahaayeen magaalooyinka Iskandariya iyo Qaahire ee dalka Masar si ay u xumeeyaan xiriirka Masar iyo dowladahaasi ka dhaxeeyay. waxaa kaloo aan hore idinkula wadaagnay in labadaasi unug ay qayb ka ahaayeen dhalinyaro Yahuud ah oo u tababarnaa fulinta howlgallada qaraxyada. haddaba Eli Cohen wuxuu qayb ka ahaa dhalinyaradaasi Yahuudda ee unugyada sirdoonka Ammaan qaybta ka ahaa, isagoo sidoo kalena ku jira dhalinyaradii ay muqaabaraadka Masar ay qabteen oo gacanta ay ku dhigeen. balse Eli Cohen wuxuu ku guuleystay muddadii baaritaanka uu socday inuu wax sira uusan sheegin, dembigana uusan qiran. nasiibkiisii oo wanaagsanaa daraaddeedna dhalintii kale ee shabakada qaybta ka ahayd sidoo kalena dembiyadooda qaatay ama qirtay magacyadoodii ma uusan xusin. sidaasi awgeed ayay booliiskii Masaarida ay u sii daayeen maadaama wax cadeymo dembigiisa lagu eedeeyay lagu waayay. waxaana waqtigaasi ay ku beegnay sanadkii 1954. Eli Cohen inta aan la sii daynin ka hor sirdoonkii Masaarida waxay diiwaan geliyeen malaf laga aruuriyay sawiradiisii ama fayl, taasi oo ahayd in uu ku eedeysan yahay ka mid ahaanshiyaha sirdoonka Yahuudda, waana arrin markii dambe kaalin muhiima ka qaadan doonta qabashadiisa.
Eli Cohen markii la sii daayay kadibna wuxuu dib ugu laabtay nolol maalmeedkiisii caadiga ahaa isaga oo qariyay nidaamkii uu sirdoonka Mossad kula xiriiri jiray maadaama uu aaminsanaa in shaybaarka hoostiisa uu yaallo. yacni indhaha sirdoonka Masar ay ku soo jeedaan oo aan hal qalad oo kaleenta sabab u noqon karaya isaga oo gala in xarag daldalaada loo kaxeeyo. sidaasi awgeedna wax howl sirdoona ma uusan qabanin waxaana uu u noolaa sidii muwaadin caadi ah si aysan sirdoonka marnaba aysan uga shakinin. kadib dagaalkii kanaalkii Suez ee dhacay bartamihii bishii December sanadkii 1956 kaasoo u dhexeeyay Masar iyo Ingiriiska iyo Faransiiska oo dhinaca sidoo kalena ay caawinayeen Israa'iil ayaa waxaa mar kale la xiray Eli Cohen maadaama Yuhuudda ay caawiyeen Ingiriiska iyo Faransiiska. Masaarida ayaana xabsiga u taxaabtay shakhsiyaad la sheegay inay Yuhuud ay ahaayeen oo horey ugu eedeysnaa ama laga shakiyay iyadoo ujeedka xarigooda uu ahaa ka hortag iyo inay ku lug leeyihiin dagaalka socda una adeegaya danaha cadowga. Eli Cohen markii xabsigii uu ku jira ayaa muddo dhowr toddobaad kadib waxaa dhacday in loo sheegay in la sii dayn doono balse uusan Masar sii joogi karaynin lagana musaafurin doono. waxaana isaga iyo dhalinyaro kaleeto oo Yuhuud laga tarxiilay xeebta magaalada Iskandariya iyada oo lagu guray dooni la sheegay inuu u socotay dalka Ingiriiska. hase yeeshee Eli Cohen ayaa doontii markii ay maraysay Talyaaniga ka degay wuxuuna raacay doon kale oo ku socotay dhulka Yuhuudda xooga ay kaga haysata Falastiin isaga oo Tel Aviv gaaray 21kii bishii February sanadkii 1957. Eli Cohen markii Israa'iil uu gaaray wuxuu degdeg ula kulmay qoyskiisa oo deganaa koonfurta magaalada Tel Aviv kadibna wuxuu bilaabay iskuul lagu baranayo luqadda Yuhuudda ee Cibraaniga. markii uu bartayna wuxuu shaqo u doontay wasaaradda difaaca Israa'iil si ay tarjumaannimo uga dhigaan maadaama uu aqoon u lahaa luqadaha Carabiga iyo Cibraanigaba. kadibna Eli Cohen wuxuu bartay gabar Yahuudiyad ahayd balse asalkeeda Ciraaq uu yahay. waxay ahayd kalkaaliso isaga oo guursaday sanadkii 1959 waxaana u xigay inuu ku biiray sirdoonkii Mossadka isaga oo qaatay tababar aad u adag. qoyskiisii iyo xaaskiisa marnaba uma uusan sheegin in shaqada wasaaradda difaaca uu ka tagay uu ku biiray sirdoonka. waqtigaasna waxaa Masar iyo Syria ka dhexeeyay iskaashi dhinac kasta ahaa iyaga oo mideysnaa dagaalka Yuhuudda waxaana ay wadaagayeen magaca Jamhuuriyadda Midowga Carabta. Israa'iil dhankeeda waxay ahayd mid halis weyn ka dareemaysa midowgaani Carbeed uu hogaaminayay Jamaal Cabdinaasir kaasi oo halis weyn u gelin doona jiritaankooda. Yuhuudda waxay aad ugu baahnaayeen shakhsiyaad ka tirsan sirdoonkooda kuwaas oo ugu soo warrama xogta iyo sirta magaalada Dimashq si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyada Syria mana aysan jirin qof hawshaasi ku habboonaa Eli Cohen mooye. 21kii bishii Maarso sanadkii 1961 ayuu si rasmi ah waxa uu bilowday howlgalkii basaasnimo ee Eli Cohen. qorshuhu wuxuu ahaa in laga dhiga nin Carab ah oo ka yimid Argentina dibna ugu soo laabtay dalkiisa Syria sidaasi awgeed waxaa laga bedelay magaciisii oo Eli Cohen ah waxaana laga dhigay Kamil Amin Thabit. kadibna waxaa loo diray dalka Argentina si loogu maleeyo inuu ka yimid hay Carabtii ku soo qaxday Argentina waxaana Carabtaasi halka qaxa ay ku joogtay tir ahaan lagu sheegay inay gaarayeen 500,000 ruux iyadoo intooda badan ay ka soo jeedeen Syria, Lubnaan iyo Falastiin. Eli Cohen ama Kamal Amin Thabit markii uu soo gaaray dalka Argentina wuxuu bilaabay inaan laga waayin goobaha isugu yimaadaan Carabtii ka soo qaxday dalalkooda ee Argentina joogay iyo sidoo kale inuu ugu sheekeeyay in asalkiisa Syrian uu yahay oo halkaasi ugu dhashay balse sanadkii 1947 isaga iyo adeerkiisa ay u safreen Argentina kadibna ay Yurub safar ganacsi ay ku tageen markii ay hawsha ganacsiga ay wadeen ay dib ugu soo laabteen Argentina. Eli Cohen waxay isbarteen in lagu magacaabay Cabdilatiif Al-Khashaan oo tafatiro ka ahaa wargeyska Al-Caalam Al-Carabiya kaas oo Argentina iyo meelo kale ka soo bixi jiray. waxayna barashada Cabdilatiif ay u suurtagelisay inay isbartaan shakhsiyaad kale iyo mas'uuliyiin diblomaasiyiin ka tirsanaa safaaradda Carabta ee ku lahayd caasimadda Argentina. diblomaasiyiintaasi waxaa ka mid ahaa Cornel Amin Al-Xaafid. sida ay sardoonkii Yuhuudda ay sheegeenna Amin Al-Xaafid waqtigaasi wuxuu ahaa mas'uul ka tirsan safaaradda ee Jamhuuriyadda Midowga Carbeed ee ku lahaayeen Argentina. waxaana xusid mudan in Amin Al-Xaafid waqtigaasi 2 sano kadib yacni sanadkii 1963 uu noqday madaxweynaha Syria. Eli Cohen waxaa si la yaqaano u dhexgalay bulshadii Carbeed ee Argentina ku nooleed kadibna waxaa dhacday in sargaal sare oo ka tirsan sirdoonka Syria uu arrintiisii su'aalo iska weydiiyo shakina uu ka muujiyo
wuxuuna macluumaadka Eli Cohen ku saabsan u diray sirdoonka Syria ee Dimashq isaga oo ka doonaya inay ka caawiyaan xog ku saabsan Kamal Amin Thabit. sababta uu sargaalka Syriyaanka uga shakiyay Eli Cohen waxay tahay in sirdoonka Israa'iil ay waqtigaasi ay gaareen Argentina waxaana u suurto gashay inay gacanta ay ku dhigaan sidoo kalena ay afduubtaan in lagu magacaabay Adolf Eichmann oo ahaa mid ka mid ah saraakiishii ciidan ee naazimigii Jarmalka kaas oo markii dagaalkii labaad ee adduunka uu dhamaada u cararay Latin America si halkaasi ugu noolaado isaga oo magacii kale iska bedelay balse sirdoonkii Yahuudda ee Muusaadka ayaa xogtiisa soo helay kuna guuleystay inay afduubtaan oo ay Latin America ka wadaan iyaga oo geeya Tel Aviv si halkaasi loogu maxkamadeeyo dambiyada Yahuudda uu ka galay. sirdoonka Muusaad markii Eli Cohen magaca ay u doorayeenna waxay u dooreen magaca Kamal Amin Thabit waxaana magacaasi u ahaa mid si xaqiiqa u lahaa shakhsi Carab Syrian ah kaasi oo diintiisa muslim ah yahayd in muddo ana ku noolaa Lubnaan isaga oo guursaday gabar Lubnaanees ahayd oo lagu magacaabi jiray Saadiya Ibrahim taasi oo dhashay wiil lagu magacaabayay Kamil kadibna isaga iyo qoyskiisa u safreen Masar iyaga oo u sii safray Argentina sidaasi awgeed sirdoonkii Syria markii baaris ay ku sameeyeen arrinta Kamil waxa uu soo baxday in uu yahay xaqiiqo warka uu sheegayana ay sax yihiin sidaasi awgeed ayuu uga dhacay shakigii laga qabay ee ahaa in uu ka tirsan yahay sirdoonka Yahuudda waana markii saddexaad ee uu badbaadayo wax dambi aana lagu weynayo. Eli Cohen ama Kamal Amin Thabit markii uu ku soo xasilay dalka Argentina ayuu asxaabtiisii Carbeed u sheegay inuu doonayo inuu tago dalka Syria markaana uu booqasho kaliya uu ku tagi doono balse niyadiisa ay tahay inuu si rasmi ah dalkiisa ugu laabto oo u dego. kadibna wuxuu tagay sida la sheegay safaaradda isagoo howlihiisii safarka ka soo dhamaystay wuxuuna sagootiyay asxaabtiisii isagoo u soo safray Syria. Eli Cohen ayaa muddadii safarkiisa wuxuu ku hakaday magaalada Zurich ee dalka Switzerland isagoo halkaasi kula kulmay sargaal ka tirsan sirdoonka Muusaad wuxuu uga sii gudbay magaalada Tel Aviv iyagoo qoyskiisa halkaasi uu kula kulmay maalmana la soo joogo wuxuu sidoo kale ula kulmay saraakiishii Muusaad ee Tel Aviv isagoo ugu warbixiyay sida habsamadi leh uu socdo qorshihiisa waxaana Muusaadka kalsooni weyn ay ku qabeen Eli Cohen. kadibna Eli Cohen wuxuu soo gaaray magaalada Dimashq ee dalka Syria isagoo uu ka degay xaafadda lagu magacaabay Abu Rumana wuxuu halkaasi ka bilaabay howlo ganacsi ah si ay dabool ama daah ay ugu noqdaan hawshiisa sirdoonnimo looguna maleeyo ganacsade caadi ah oo dalkiisa dib ugu soo laabtay. muddo markii hawshiisii ganacsiga uu waday ayuu bilaabay inuu xiriir la sameeyo shakhsiyaadka hormuudka u ahaa bulshada gaar ahaan shakhsiyaadka dabaqada sare ee taajiriinta ahaa wuxuuna macluumaad kasta uu helay markii gurigiisa uu dib ugu soo laabto u dirayay hay'adda sirdoonka Yahuudda isagoo adeegsanaya nidaamka yar ee sirdoonka ay ku wada xiriiraan kaas oo gurigiisa uu ku qoriyay. halkaa inoo joogta qaybta xigta ee sheekada ku saabsan fadeexooyinkii Muusaad qaybta xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo.